haddaba hadda waxaa badan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu tilmaamayey xudayfata bnulyamaan saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi dadku nebiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray buu yidhi anigoo ka cabsi qaba sharkaasi inuu soo gaadho dabeetana khayr baanu hadda haysanaa khayr ma ka dambayn doona shar ma ka dambayn doona haabuu nebigu yidhi khayr ma ka dambayn doona khayr baa ka damba wa fiihi daad u soo waday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii dambe ku yidhi waxaasoo dhan waxaa ka sii dambayn doona ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuu duul jahannamo dadka ugu yeedhaya maalan ilxaadka oo kale taariikhda dheer oo bini aadamku ka mid yahay oo qaybo falaasifada ka mid oo mulxidiini way jiri jireen laakiin mulxidku kuwa aan ilaahay rumaysanayn maxay siday u noolaayeen filosofkii holandiis miyuu ahaa Spinoza la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay cala almulxid الصمت والاعتزال ويدا الصمت والعزلة waxay ahaan jirtay buu yidhi qofku markuu shakigu galo waxa kan uu ku dhacaan inuu iska aamuso oo keli iska noqdo nolosha ka qanco oo waxa kan waayo qofkaasi tuunal madow buu galay tanal madow noloshoo dhan baa mugdi noqonaysa sababtu waa maxay qofkani wuxuu garan waayayaa why am I here maxaan u noolay maxaan halka ka qabanaya ka shaqaynaya xagaan ku socdaa xagaan ka yimi noloshu maxay tahay therefore wuxuu ka baxayaa noloshoo dhan wuxuu arkayaa meaningless alxaya kullaha maxaan qiimo lahayn buu u arkayaa noloshoo dhami dhadhan yeelan mayso هيبانات أدوك ترى هذا المهم محو حب رواية محو شغتك مساء أركب أنا قيمة الله يضيبه وحاركا إنو الانتا إنا كرونتا إنو النولادا أيو حرميسيني كديت كده بتكريسان لاي دايك أبحضه نرشان ورور كده يفكر كده كديت كده waa laga yaabaa inaan la yaabtaan laakiin waxaa laga yaabaa kuwa yarara gurigiina jooga haddaad weydiiso inuu ku leeyahay intaasoo goorma isku dayo is yidhi ku fakeri ma isdishaa baan ku fakeray kuwa waaweyne brofesorada ayaa kuwan basaa u fakera haddaba hadday waagaa hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isagoo isku mashquula ama istila ama saa imka waxay noqotay meel ducaad preachers dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo la bini'aadamku xaq buu leeyahay inuu diimaha ka tago bini'aadamku xaq buu leeyahay inuu shudu sameeyo bini'aadamku xaq buu leeyahay xorriyaad iyo xuquuq iyo kan iyo looyaris iyo qawaaniin iyo dowlado iyo mujtamacaad dhan oo xumaha gaadhgaraynaya oo ilaalinaya oo dhigaya ugu horrayn ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay horta inaynu ilaahay barino rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab inaynu ilaahay weydiisano laa tuziq quluubana bacda id hadaytana ilaahayow intaadna hanuunisay kadib quluubtayada ha weecinin kuwa ambada ha naga dhigin shubahaadku haddaba laba goor bay dadka wax yeelaan qilat alcilm aw dacfi albasiira bay yidhaahdaan aqoon darro ilaahay waxyigiisa loo aqoon daran yihi iyo aragti xumo nolosha lagu aragti xun yahay ama basiirada qofku iyo tadaburkiisa uu liito waayo ilaahay wax kasta oo diintiisa khilaafa wuxuu ku tilmaamaya in yattabicuuna ila adanna wama tahwa alanfus in yattabicuuna ila adann waa mala'un waxa ay raacayaan baa ilahay leeyahay waa shubahaad waa waxay ismoodsiiyeen xaqiiqa ma jirto
iyo wamaa tahwa alanfus waxay naftu doontay in nafta loo siiyo freedom inay waxay doonto samayn karto qofku wuxuu doono inuu tijaabin karo cabbi karo fuuli karo wuxuu doono inuu samayn karo ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa dadka waxyiga diidani waxa ay rabaan waa labadan waa dadka madowga ku sugan ay professor weydii mulxida what's the meaning of life day noloshu maxay macna leedahay waa maxay macnaha noloshu maxaad u nooshay waa no answer cid ka jawaabi kartaa ma jirto waayo allihii bini aadamkana abuuray baa ka jawaabi kara waxa loo abuuray gaadhigaa ninkii sameeyuunbaa kuu sheegi kara waxa loogu talagalay shay kasta ciddii samaysuunbaa taqaanaa laakiin shayga la sameeyey isagu ma yaqaano wuxuu u joogo therefore markay waxyiga ilaahay diidaan waxay ku soo noqdaan mas'ale ah lama garanayo jawaab lama hayo ma la rajaynayaa in jawaab la helo maya iyana ma jirto waayo wuxuu hadduu maaddadan hor taallee laabka la geliye la wadwado hadduu dhaafo waxaa ka dambeeya jawaab ma leh cidda ka jawaabi kartaan waa alle subxaanahu wa tacaala sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa tattabici alhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiid bima nasuu yowma alxisaab waxay ugu sii daran tahay lumista caynkaasi iyo marka haddana inta la qurxiyo magac kale la saaro bini aadamku bay yidhaahdaan abuurkiisa waxaa ka mida bini aadamka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray ayan kaan ha ahaadee xumaha inay naftu diiddo ilaa xad uu nebigu leeyahy alitma maa xaaka fi nafs inay naftu diiddo sida ogeed bini aadamku isagoo raba inuu xuma sameeyo ma yidhaahdo xumaan samaynayaaye jas magac kaluu bixiyaa si uu isu qanciyo maalan dowladahani markay dowlad yaroo miskiinadan waxba haysan lagu duulayo ma yidhahdaan tan dowladda yar baanu afka soo jebinaynaa ama lama yidhaahdo shidaalkeedaan rabnaa inaanu soo qaadano ama inaanu soo boobno waxaa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator baa magac kalaa loo bixiyaa wuxuu isku qancin karo qofkiyo waa aqbali karaa lagu tilmaamaa xumaha marka la tilmaamayo la odhan maayo waa xumo waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kalaa la saara si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilahay wuxuu tilmaamayaa ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay camalkiisii xumaa baa loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay kaa iyo dee ninka xaqa arkaya may siman yihin ilaahay baa faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa idan ayuha alaxiba maanta dunidan aa ku nooshihiin inkastoo laga yaabo dhul fog oo aydan filanayninba in qurunkani gaadhay waayo dunidu badkan mubaashirka iyo tv-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel isu furan waxay idhaahdaan taariikhdii hore bini aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay yidhahdaan qalcada iyo suur dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo seefka watiyo leebka watiyo wax wata aanu ku soo gaadhaynin xadaaraddu waxay gaadhay bay yidhaahdeen hubkii la samaystay qalcaddaa in la dumin karo ama madfaca noqoto ama dayuuradda markaa nin meel isku qarin karaa oo oodan kara markii hore ta kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda ha iga soo gelinoo xad aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaanay fiisa la'aan meeshaada ku imanin waxay ahayd maca afkaartiisa inuu kaa joogo maxay halkaa uu kaa joogay
technology-ga cusub wuxuu sameeyey inaan ninnaba meel wuxuu ku qarsan karin ninnaba markaa gurigii aad adigu dhisatay carruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga daba galay iyadoo aan cidina adiga fasax ku weydiisanin dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheeda bahalka yarow gacanta ku sito ayuu ugu jiraa marka meel badanoo lagu dhuuntaa ma jirto laakiin wax waliba xal bay leeyihiin waxa uu dadku u baahan yahay waxa weeyaan mushkiladdii waa tanoo waa aragnaaye xalkeedu muxuu yahay ma inaynu isdhiibnaabaa xalkeedu qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay dhahaan labadan mas'ale aayaddana ay sheegtay labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda الشبهات والشهوات شهوات نفسنا الصبر أي الودة ويا بيد هذا وعن المعصية هي ملذات كذا يلقى الصبر عبادة يلقى الصبر بقى الودة ويا بيد هذا تنك لنا يقين بقى الودة ويا يقين تؤدي لك كل صبر عقيدة الودة ويا وإن شبهات تنقف كقلبي سلقى صاره marka cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad uga hadal waxaan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxay intaanad waxaa ka odhanin waxaa ka horeeya asaaska inaad binayso asaaska inaad binaysaabaa ka horraysa oo ah dadkan aynu dhallay iyo ummaddeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamatulxuja cala annaas samayno inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynan shubahaad ka reebin qofka hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin shubahaadkana loo bandhigo waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بربا إلهي لي يقرأ أنه لا إله إلا الله أقوم بي أبا هانتي إذا وحن لنا أغه الرين شيء كواد وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة إني نور دقنا أصول العقيدة إني نور دقنا هدانا دور دقين وأدكتي صدح ذا وحان شيء مدنا بينت كعلسو والله يا صدح ذا بين هذا تقول نعبتي إنه الماء ملحد نقضين أطربين إنه شوات كبيرين أطربين إنه دروبستي إنه عن نقضين أطربين لكن كاسوا واحد شيء يسي واحد سمين سامة المامية واحد سمين يسي كواد علاجه هي وحوية هي إن عقيدة الصحة إنه مركه هذا كبر عقيدة صحة وإلهي كتاب كيسا أدلة كفلا هديت أدلة جريتان كصابصا هديت أدلة كصابصا صدق النبوة هديت أدلة كصابصا قيامها أدلة دوباي هدي وحلالي وحي إنه مسألة كورمينا ما غيبها تا مشاهدات وحي دون تبع النقطة أدلة ديدا وعقلية انت إن شرعي قوتين وهي قرآن كنت كل يقول هذا ما بين رميسنين مركه هوري نبي محمد قالوا يبي سو قال ما يهددكم دبتنا القرآن بس يدو يصدا كنا بالا لها قال كان القرآن مع السوغان رميسنين بالا وحلة المامي مسائل كان هنا اللوتشكيين وعقلي سجليا هنا كنا دعينيان إلهي جريتان كيسي الرسول كالرسول نمديسة يا آخر جريتان كذا بقى سو قال يقول هذا لي إنه وحين وهيسنا القرآن كان ينتظر مؤمنين تعالوا يقول هذا قال كم حال يقول هذا يا مركها هذا وحكي لك كينية إلهي نبي محمد القرآن كان بيقول يقول كله قل ميرانك تعالى كله وصاو شيء هذا يساكو إلى هذا نساكو كله شبهات كذا إلهي القرآن كثيرين يساسا إلى هذين إسعاد بقى إلهي إلى يساسا إلى وحي الشبهة إلى هذين القرآن كان حديثة كيلسة وإلهي كجوابيه سبحانه وتعالى إذا وحين لنا هاي عقيدة وحي اللي قل لها قال يا مسلم بالله قل لها لو شيء لها
dad qof rabto inaad diin u sheegto waxa ugu fiican aad u dhiibta waa kitaabka qur'aana daan luqa carbeed garanayn bal cala alaqal kitaab tafsiir oo afkiisa ku qoran inaad u dhiibto axsan shay ama professor ha ahaado ama wuxuu doonaa ha ahaado ama nuclear ku takhasuso ama wuxuu doonaa ku takhasuso ilaahay qofkan abuuray kan buu soo dejiyey laguma odhan adigu caqligaaga wax uga daydayo adigu wax ku dhexdheh cidna kuma odhanin laakiin waxaynu u baahannahay inaynu kitaabkan fahamno marka maadaama isaga loogu talagalay gaal iyo muslimba in lagula hadlo wax loogu sheego wixii aadam dhalay in lagula hadlo iyo wixii jimba ka tirsanaa kitaabkan waxaynu u baahannahay asalka ah inaynu dadka u dhigno isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda laakiin waxay ku xidhantahay madaa fahmina inta aynu ka garanaynay ku xidhantahay jawaabtaas aynu kala soo baxayno aqoonteennu intay gaadhsiisantahay aynu kitaabka u leenahay kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamayo diinta inaynu dadka barro waa xujadii nebi maxamed loo soo dhiibay ee ku oogno xataa kaan rumaynaynin inaynu xujada ku oogno waayo qur-aanku wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhira ambiya inay imanaysaa cidiba la socon ama midi la socdo ama laba la socdaan maxaynu odhanaynaa ambiyadaasi may guulaysanin miya maya ambiyadu shaqadii loo diray way qabteen oo waa maxay shaqada loo diray shaqada loo diray waa dhowr miduun inay noqoto inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan kuwa waxaa la yidhi taskiyatu nafsi iyo tacliim buu sameeya inay tababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujati calayhim aakhira inaanay cudurdaar helin waayo nebiga kan shaqadii loo soo diray hadday raaci waayaan xujaduu ku oogay aakhirana cudurdaar ilaahay kama helayaan subxaana wa tacaala wuxuu nebigu qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cidna inaanu cadaabin wamaa kunna mucadibiin xataa nabcatha rasuula ma cadaabna cidna inaan rasuul soo dirnay rasuulkan haddaanay rumaynayn maxaa fircoon ilaahay wuu ogaa inaanu rumaynayn maxaa loogu soo diray mase inuu xujada ku oogo fircoon aakhira inaanu odhanin waxba aniga ima soo gaadhin iyo waxba garan maayo inaanay odhan idan xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid un bay noqon ama way islaam iyo diintay qaadan ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aanay cudurdaar ka helaynin kuwaynu dhallayna waa la mid iyo kuwaynu la dhaqanna iyo kuwaynu wada noo dhammi inaynu xujadaa ku oogno dadka diinta wada barro haddii kale innagaa dee dembaabaynaa nimankii reer banu israa'iil ee magaalada deganaa ee laga mamnuucay sabtada inay ugaadhsadaan markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan maxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaqun ilaahay inaannu cudurdaar ka hello xujadii inaannu ku ognay inaannu caddayno iyo haddii dee qalbigooda diini gelayso inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala idan waxay leenahay asalku waa inaynu dadka diintan iyo qur'aanka kan u sharaxnaa u sheegnaa gaadhsiinaa ku gaala iyo ku muslima iyo ku kastaba waa inaynu isaga ku tasallux waa inaynu isaga hub ka dhigannaa oo uu noqdaa wuxuu uu sheegayaa wixii aynu sax ku garan lahayn inta xanuunku ku dhacday saynu u gallaa kow waxaa leenahay dhallinyaradan wareertay ee afkaarta qaldane tirada badan le laga dhaadhiciyey waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in la sii durkiya uma baahna inaynu intaynu ceebayno erayno oo fogayno maaha laakiin laa takuunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum xadiidkii imaamu axmed soo saariyo qolyo kaleba inkastoo sanadka culammadu ay daciifiyaan laakiin shacayb alarnaawuuti duruqdiisa intuu wax isu gegeeyaa buu taxsiininayaa ninkii gacanta la jaray ee uu nebigu ka yara murugooday say sheegayaan kaannaka karihta qaطcahu bay yidhaah ilaahay rasuulka malaa gacangoyntiisa kan waad nacday wamaa yamnacunii buu yidhi laa takuunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum ama xadiidkii kii khamriga cabbay ee markii dhowr jeer la keenay ee dhowr goor markii dambe ay qaar lacnadeen oo maageen oo ku lahaa innahu yuxibu allaha wa rasuulah waar ilaahay ha ugu kaalmaynina shaydaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam
قطب كلابات وحين لأن إتاحة الفرصة للشباب أن يبدي كل ما عنده إن نكور رنسينه وفرصة سينه اللي كان محمد يحسك جو حيودنا نصاب النجا وين الله خشين دومر كوي أرى كوي هذا أفكك جبوده تحسي ولا مصير لكن ويكون ده دوغيني وكما دويني وكون دوغيني waliba waxa u badan tahay inay ku sii badato un cid dambana aan wax weydiinin bal groupkii iyagu negative-ka u sharxayay inuu ku sii xidhmo inuu ay shubahaadka ku sii badiyaan cid shubahadan ka saartana aanu haysanin sida awgeed nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi ay carabi u soo dirtay waa gaal loo soo diray إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تكساره ذو كفرصه عتبة بن الربيعة أبو الوليد وحالله صدري إنه النبي محمد دين تكساره يبتنا النبي قال إنتو يبي بروبوسل سبوليمي يعني يو داد وحن دونسو وحسان كسيرنا داد كان دونسو كحسان وكاردقنا داد كان دونسو لكن ده إلهي داد يدري وحاد وركنت كشيء صنف marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii Quraysheed negotiation ay wada galaan oo nabigana la siiyo wixii uu baahan karo dad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan anaga ninka ugu xoolo badan ka dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinay yani wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaan u baahanahay دين المسائل كوضع هذا الله هذه الهيئة هي باب كان عيدة كديس نبي وحى يد الله آخرين يقول سنة كم أورنين وربروح قال كي وحكوا هذا يدي قال لماذا صاد يلاتي بكم أورنين يقول جيستي مركو جيستي ونن كان يقول كيسي قال لماذا هذا ما يستي نبي وما جوابين مركبة وحكوا يدي أفرغت يا أبا الوليد وركي مرة ما يستي ولي مسوح باكو هذا يقول يعني يسوي ولي الرباه إنه جانسيه أفرغت يا بلول ما وركي ما كاسو وريجي يقول هذا الكي ما كبحنا بدنا ما يسط بركاسو يده ها بركاسو النبي قال آيات قرآن كأخري سورة سور كم كي قال قيبت ظهر كم ده أيو النبي عليه الصلاة والسلام كأخري سورة دي مركي ودقيستي أيو نن عربي ضاف كنا قرنا يبوها يسبدلي تبتنا ما كي عربي نركو النقطة واحدة والله ربيعة بن عتبة بن الربيعة سيدي وين جيت أنا هاي بولص النقطة بينها ننكي إنه دري وركا إنه خد الري معها ما حان قصة نقدر لي قصة إمام الألباني وتحسينية في سيرتي حان لنا وحويان قف كان إنه دقيس نبررت ويبتلي سيء نباها يسطا لكن مشكلات كيسة كانية وحن مدحيسة كقوحية وحن يسموتسيي أما وحن لو آخرين إنه كدقيسنو ومثل بعض إنه أغاننا حواركو القرآن إلهي وحن أوشا أنبياء حتى إلهي وحويدي سنس وإذ قال إبراهيم هو نبي إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى واحد تستا ضد كان نتبل سيدا صورنا ولينس أما النبي موسى إنه إلهي إلى وحن ربينا وأركو إذا سأشو وحيدون تهاهات وحنو باهنا يتذكر إنه دقيسنه القرآن كإلهي وحنا ورما يا قال بدنا حوار للسمي قار وحدي دنابة إلهي وحول قل وحد كنت هذا أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إلهي وحول وحد كنت هذا warbal waxaan abaryaysaan cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen mada khalaqo min al-ard am lahum shirkun fi samawat kownkan dana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihiin mashruuka ilaahi kuleeyin ituni bi kitabin min qabl hada kitab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya haduu jira keena aw atharatin min ilmi ama raad aqoomeed waxa sheegaya haduu jira keena yani islaamku ilmi ma diidana
لكن الحادكو علمي معها الشبهات اللي سوقيقي ساسي أوقات با إلهي وحط المامية وارك إنها لقلو كوا وحكرا مثلا ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadana ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco haddaad adigu dhakhtar hayn oo daweyn karan in dhakhtarba la raadsaa soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso fakadaalik tanna waa jiro kale uun waa jiro kale ku dhacday adigoo waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka gala daweeya inaad u raadiso weliba waxa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin waayo cultural pressure baa jira oo inanka caadade reerkoodii caddaabaa walba waxaa rumaysnaa markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko innaga waxaa jira cultural pressureku wax jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baan khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaada guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batay oo dee gurigaygii baan uga imi inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahdaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saan dadka u galay ninkii jaarkaabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamacaa bedelay mujtamaca cadaadiskiisii ayaa bedelay saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan laakiin wuu rumaysan yahay wuu qarsanaya wuu rumaysan yahay oo wuu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan wuu laakiin wuu qarsanaya walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo de intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkana waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasi oo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa hada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda doodda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nebi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhaahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba إلهي وحولي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال ذي الاستلامت قال هذا كم دي هدو مغنقلية إذن ويديستو مغنقلية إلهي أنتو كم مقلية إلهي وركي سبا رب إليه سبحانه وتعالى ثم أبلغوا مأمنة إلهي قرآن كوحكوت المامية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
fiiha kutubun qayima may ahayn may noqdeen nimanka gaaleed iyo kuwa ahlu kitaabkuba inay qalloocooda iyo diin xumadooda ka baxaan may suurto gasheen ilaa iyo uu timi maxay bayinada cad waa maxay rasuulun min allahi yatlu suxufan mutahara rasuul xagga alle ka yimi oo ku dul akhrinaya suxuf mutahara fiiha kutubun qayima baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo shubahehebla waxaasay deliishadaan iyo waxaasaa lagu ridayaa iyo kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka si u isticmaal lahayn baynu tilmaamaynaa laakiin waxaan rabnaa inaynu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo weliba systematic ah oo iskuulinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaas iyo uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku dee masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badan ee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryar waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meesha inay la joogaan dhibtaasaa haysataa shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin inay ugu caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barno jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaynu wax ka barno sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka wax ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manahaj wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan dad adugu de sidii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito oo iyagu wax dhigaya kuwaasi waa gruub kale laakiin dadkan kale iska hijrooda kolba meel iska degaa 3 jiil unbay sii noolaadaan jiilka saddexaad dadku ka mid yahay aduu kaa dashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa ee meeshaasii jooga kaasi ka saddexaad u dhala xaguu noqonayaa practicalina waa la hayaa eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuhmaaniyiintay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax oo kuwii waddannadan latin america raggii xukumayey carlos muncim iyo hebel yani raggii xukumayey marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen xataa masaajiddu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajiddii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar baa hadda baarking ah masaajid 7 dabaqaa jiro hadda baarking ah waa baarkinga wadhida lagu xidhayo xagga sarena calaamadihii muslimka ayaad kursiya waxbaa ku qoran baarkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid baa may rumaysnayn daaruun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkan ilaalisa
dii la waayo saddexdaa guruubaan imka idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan. saddexdaa guruube trendka ah aan leenahay waa trend iska socda ayunbay ka mid noqon doonaan. in ilaahay dafirta, in qoomamka aan la garanayn ku biirta, in daraggaa iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan. waxa qura ay ku badbaadi karaan, dadkaynu u nimin aynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno, inana isu sheegno, kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno. wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin. qur-aankaasi wuxuu u yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa, shifaaءun lima fi suduur, laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan. qur-aan baanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahay caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican. haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto, dhadhan ma leh nolosha kale. dad balaayiin haysata dhadhan ma leh. noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay. ختاما للدرس dhibtaasaa jirta, dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa. labadaa wax baynu u baahanno aad siin inaynu samayno, marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin, iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam.